Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin hordhac ah ka bixisay dagaal culus oo saakay aroornimadii hore ku dhex maray deegaanka Jabad Godone ee gobolka Shabeellaha Dhexe, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa kooxda Al-Shabaab. War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka ay fashiliyeen weerar saaki deegaanku ku soo qaadeen Al-Shabaab, isla markaana haatan si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanka Jabad Godone ciidanka dowladda. Wasaaraddu qoraal ay soo saartay kuma faahfaahin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka saakay ka dhacay deegaanka Jabad Godone, waxaana wararka madaxa bannaan ay sheegayaan inuu jiro khasaaro xoog leh oo ka dhashay weerarka saakay ka dhacay Jabad Godone. Waxaa hadda socda howlgal ballaaran oo isugu jira sifayn iyo sugid amni, kaas oo lagu ciribtirayo haraadiga kooxda Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanaya deegaanka si looga hortago isku day kasta oo ay dib isugu abaabulayaan ama ay ku carqaladeynayaan nabadda dadka deegaanka, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya. Weerarkan Al-Shabaab ay ku qaaday aroornimadii hore saakay ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay ciidanka dowladda Soomaaliya ay kordhiyeen howlgallada ka dhanka Al-Shabaabka ku sugan deegaanada ku dhow degmada Warshabeelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Aniguna waxaan ahay weriye Mahad Aadan Xuseen. Warqaadna waad iga daawanaysaan hoyga wararka xaqiiqada.